إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم. علمك سيل لو سoo celin karaa horta wax waliba waxay u baahan yihiin juhdi iyo sabir. maanta qofka muslimka raba inuu wax bartaa wax kasta doona uu baran karaa waxa doonto waad baran kartaa laakiin dhowr wax baa u baahantay. kow dadka inoo haya wasaaradda waxbarashada iyo macrifta iyo waxa kan manhaj tacliim iyaga waxaan fari lahaa inay dib ugu noqdaan waayo manhajkan ku salaysan manhajka reer galbeedku wuxuu ku salaysan fikrad ah inanku intuu 18 jir ka yar yahay underage inuu yahay in la madadaaliyo inay asalka tahay. 9 sanadood hore wax nafla looma dhigo ciyaar iyo muusig iyo sawir iyo waxa kan iyo waxa loo dhiga. 6 sanadood oo secondary ku jira waxoogaa murakasa loo dhiga deetana jaamacad baa loo diyaariyaa. cilmigu horta inuu 12 sanadood noqdaa waxaan anigu rumaysnay 12 kaasi ma jaamacadda in laga bixi karo waxa la sheegayo oo dhan 12 kan af ingiriisiga la inoogu dhigay ilaa iyo secondary ku eegay ilaa secondary gaas in ma jaamacad laga bixi karo laakiin waxay ku salaysan tahay qaabka loo dejiyo marka tarkiiska marka koowaad. idan iyada dadka wasaaradda tacliim haya ama aqoon-yahanada mujtamaca xarala nidaamkan 12 sanadood ku salaysan carruurta lagu madadaaliyo waa nidaam aan wax tar badan lahayn ee waxa ka wax tar badan nidaamka tarkiis badan in la qabto. hadi waahida ثاني الامر qof kasta oo muslim oo raba inuu wax bartaa wuxuu u baahan yahay laba shay xaq inuu barto oo suu ilaahay u caabudi lahaa ama qof saalix asuu noqon lahaa iyo aqoonta kale uu u baahan yahay inuu ku dadaalo iyaduna wax weyn ma aha haddii manahiju tacliim iyo mucallimiintu ay fiicnaadaan oo training schoolsku macallinkii loo baahnaa uu soo saaro manhajkuna uu yahay kii loo baahnaa muddo aad u yar ayaa mujtamaca Soomaaliyeed wax badan laga bedeli karaa muddo aad u yarna aqoon sare ku gaari karaa. dunidana revolutionada nooca kan in badan bay ka dhaceen tacliimiga ahi ma aha waxaynu inagu bilaabaynaa oo soo dhacay horena loo tajribeeyay inana hadaynu wadooyinka noocaas iyo marro la mari karo laakiin wuxuu maanada leeyahay cilmigu isfaranjiyeyn ma aha adigoo muslimaad wax baran kartaa wallahu a'lam.